Asalaamu calaykum. Maanta waxaan idinla wadaagi doonaa mowduuc xiiso badan oo ku saabsan cilmi nafsiga. Waxaa laga yaabaa inaad marar badan maqasheen ereyga cilmi nafsi oo markaa afka qalaadna lagu yiraahdo psychology. Waxaa jeclaan lahaa inaan si toos ah idinla hadlo, idinkuna aad ila socotaan. Su-aasha ugu horeysa ee maskaxdaada kusoo dhaceysa ayaa ah, sidee ku ogaan kartaa waxa uu qofka qalbigiisa ka dareemayo? Ama sidee ku ogaan kartaa xaaladda uu ku sugan yahay qofka hortaada fadhiya? Marka aad qof la kulanto marka uu kugu horeysay, si fudud kuma ogaan kartid nooca qofkaas uu yahay, sida dabeecadiisa, dhaqankiisa, ama run iyo been waxa uu kuu sheegayo. Muuqaalkan waxaan idinkula wadaagi doonaa talooyin cilmi nafsi ah oo kaa caawinaysa in aad fahamto qof kasta oo hortaada yimaada, ha ahaado qof aad taqaano ama qof kugu cusub. Aniga ahaan Cabdirasaaq ma ahi qof bartay cilmi nafsiga. Dhammaan xogaha aan idinla wadaagi doono waa kuwo aan kasoo xigtay buugaag cilmi ah, waxaana ugu talagalay inaan si kooban oo la fahmi karo aan idinkugu soo gudbiyo. Waxaan rajeynaa inaad ka faa'iidi doontaan mowduucan muhiimka ah. Waxaan kaloo idinkaga mahadcelinaa sida wanaagsan ee aad ku subscribe gareynaysaan kanaalkeena. Kusoo dhawaada mowduuceena maanta. Haddaba aanu ku bilaabno qodobkeena ugu horeeya oo ah luqadda jirka iyo indhaha. Qofka oo aan indhahaaga si fiican ama si toos ah kuu fiirin karin, haddii uu qofka kaa ilaalinayo indhihiisa indhahaaga hadduu ka ilaalinayo, waxay tilmaami kartaa laba arrimood. Kow, inuu qofka wax kaa qarinayo. Labo, inuu been kuu sheegayo. Labadaas mid ayay noqon kartaa. Haddaba marka aad aragto astaamahaas, taxaddar oo si fiican u fiiri qofkaas. Qodobka labaad waxaa waaye qofka oo indhaha kugu gubayo, si zaid uu kuu fiirina qofkan. Soomaalida waxay dhahaan indha cadeys, qofka indhaha inuu kugu soo cadeeyo, indhaha kugu soo gubo oo si aad kuu soo fiirinayo. Indha cadeys ay dhahaan Soomaalida. Marka qofkaas waxay noqon kartaa inuu ku cabsi geliyo ama inuu ku baqdin geliyo uu rabo. Marka aad xaaladaas la kulanto, waxaa loo baahan yahay inaad dejiso oodan cabsi iyo wax isku beerin, aadanna dareensiinin qofkaas inaad asiga ka cabsanayso. Qodobkeena saddexaad wuxuu noqonayaa qofka oo indhaha laablaabaya. Haddii qofka indhihiisa uu kaa laablaabaya aad aragto, waxay muujinaysaa inuu qofkaas hadalkaaga xiiso ku haynin. Qofkaas wax adiga markaas kala hadlayso inuu dareensanayo ama inuu uu ku soconin hadalkaaga. Hadalka miyuu socday dhaan moogtahay dadka. Marka qofka xaaladaas aad ku sugan tahay, jooji hadalka ama sheekada qofkaas aad u wadid ama mowduuc aad ka hadlaysid bedel. Qodobkeena afraad ee aad ku ogaan kartid xaaladda qofka uu ku sugan yahay waa salaanta ama isgacan qaadka waxa loo yaqaano. Gacanta waxaa ka hadlaynaa kolley rag markay salaamayaan, sidoo kale dumarka markay salaamayaan ka hadlayno dad kale ajnabi ah inay gacmaha isgeliyaan. Taas waa diinteena aad sheegtay oo waa xaaraan. Waxaa ka hadlaynaa laba qof oo rag oo salaamayaan oo kale. Qofka haddii aad aragto inuu si degdeg kuu salaamo gacanta ku geliyo, isla markaa haddana kaa fuqaayo kale. Laba mid ay noqon kartaa marka midaas oo ah inuu qofkaas uu xanaaqsan yahay ama inuu khilaaf jiro adiga iyo qofkaas wax uu kaa tabanayo inay jiraan. Qodobka shanaad, qofka marka aad u sheekeynayso inuu hore usoo fadhiisto kale, inuu garabkaaga wax yar uu soo dhawaado. Taa waxay noqon kartaa qofka inuu xiiseynayo hadalkaaga. 6, qofka markaad u sheekeynaysid ama qofka markuu asiga kula hadlaayo, haddii aad aragto qofkan uu gacmihiisa isku salaaxayo ama gacmihiisa saas isku dul saaran yihiin oo isku salaaxayo haddii aad aragto, waxay noqon kartaa qofkaas inuu xaalad farxad leh uu ku sugan yahay, isla markaana uu sugayo wax wanaagsan ama wax uu fiican uu filanayo. Qodobka 7 waxaa waaye madax ruuxid badan. Uu sheekeynayo haye qofka wax kuma lahan keliya madaxaas uu ku ruxaya. Inkastoo madax ruuxida ay muujin karto ogolaansho, hadday badato waxay noqon kartaa laakiin calaamad muujinaysa qofkaas inuu sheekadaada rabo inuu ka baxsado. Iyadana way noqon kartaa labadaasba. 8, qofka inuu hoos fiiriyo. Qof adiga markaas aad u sheekeynaysid ama qof asiga kuu sheekeynayo inuu hoos fiiriyo. Qofka hoos fiiriya wuxuu badanaa muujinayaa kalsooni darro ama dareen liidasho ah. Qofkaas wax buu dareemayaa inuu asiga liito, inuu qof hooseeya yahay, waxyaabaha ama wax maskaxdiisa ka guuxayo. 9, qaab socodka. Qofka uu qaabka u soconayo. Haddii aad u soconaysid qaab luudasho camal oo tartiib qof tacbaan oo kale haddii aad u soconaysid, waxay muujinaysaa kalsooni darro ama qofkaas inuu isku kalsooneyn. Laakiin qofka tilaabada qaadayo, xarakeynayo, kama hadlayno isla weyni kama wado, laakiin qofka waxaa loo baahan yahay si xayi inuu u soconayo oo tilaabada qaadayo oo si fiican u socdo. Taasna waxay ka mid tahay qaabka lagu ogaan karo
psychology-ga qofka ama qofka markaas wax uu dareemayo ama xaaladda uu ku sugan yahay. Waxaa soo gaarnay qodobkeena ugu dambeeyay oo ah nooca codka. Marka uu qofka xanaaqsan yahay u fiirso codkiisa aad u qaylinaya, yacni qof aad u qaylinaya waa markuu qofka xanaaqsan yahay. Taas waxaa lagu ogaan karaa psychology-ga. Sidoo kale marka uu qofka si hoose u hadlayo iyadana waxay noqon kartaa yacni dhinac waxay noqon kartaa qofkan qof liidasho ama waxay noqon kartaa markuu qofka si hoose u hadlayo yacni iyadana waxay muujin kartaa qofka inuu hadalkaas ama sheekadaas uu danaynaynin. Waa garsoon. Waxaa soo gaarnay gabagabadii iyo gunaanadkii mawduucana maanta oo ah cilmu nafsiga ama waxa loo yaqaano afka qalaad psychology. Waxaan rajeynayaa inaad mawduucan si wanaagsan ugu faa'iidaysateen. Waad ku mahadsantihiin daawashada muuqaalkan. Waa aniga oo ah Cabdirasaaq Ali. Waxaan idin rajeynayaa bashbash iyo barwaaqo inta aan ku kulmi doono mawduucan mawduuca xiga. Waxaan idinkaga tegayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.